الله الرحمن الرحيم. halkan waxaa ku joogaynaa aasaaskii iyo sababtii loo aasaasay jamhadii Somali Salvation Democratic Front SSDF iyo xisbigii ka horeeyay oo la oran jiray Soodo oo isaguna ka jiray Roma ka jiray oo sababtii loo aasaasay waxaa ka mid ah tacdiid oo kacaankii loo geystay oo Soomaaliya u geystay markii nimankii askarta ahaa ee Soomaaliya inqilaab ku qabsaday xiriirnimo ku soo guuray wadanka oo xoog ku qabsaday ay qaateen nidaam aysan waxba ka garanayn oo aysan aqoon u lahayn oo Marxism iyo Lenin iyo Marx ay samaysteen Lenin iyo Marx waxay samaysteen oo ah maartay shuuciyada oo aan Soomaaliya shaqo ku lahayn oo dadka islaamka aysan waxba ka garanayn waxaysan aqoon bi faraha la galeen ala kulli xaal waxa ku dhacay wax la yiraahdo awmarki oo ah jahwareer sababtoo niman garan weeyo oo ma aqoon leh ma ahayn waxay sameeyeen nidaamkaas ay qaateen marka waxay dhex galeen oo fiiris ugu horeysay diintiga dhex galeen waxa maartay munaasib ah in ayado quraan ka hor yimaadeen wax barashadii bay waxay ku sameeyeen dib u dhac ku sameeyeen ardayii wax ku soo baratay wadanka dibadiisa oo maartay garan weejka ahayd Roma wax ku soo baratay shaqooyinkii waa loo diiday inkii wax ku soo bartayna ama shaqada meelaha ka helana waxa loo dhiibay nin oo dad golayaal oo aan aqoon lahayn oo maartay kacaanku oo watay ba leeyahay hoostaga marka dadkii waxa ku dhacay wax la niyad jab baa ku dhacay markii niyad jabkaas ku dhacay waxa guux waa bilaamay in macnaha laga hor yimaado nidaamkan maartay faashiisiga ah oo maartay shuuciyada dadkii ganacsatada waa la kala soocay qaar waxa la siinayay siyaalisi gobolada qaarkoodna waa la beegsanay sida gobolada maartay ka soo jeeda waqooyi bari hadda maartay dadka reer Puntland degan yihiin dadka soo jeeda ganacsigooda waa la baabi'inayay waxa loo diiday inay حتى بدموي كهوسة ماشية يتوري كي وحلقة وسمي سامدي نظام كاس شوعي وحكذا دعسي نظام كاس كرتها وحكذا دعسي إني أيسن وحبئي من شدارك إيو ناس ذلوا شدارك يراشين كأنه سنقدم تصارك وعقساني هو أنا وير أو جوانه هو ميل ليلة أورينتيشن كل ضخمة يرى تدريسي سديتين مراس وان مان أورينتيشن كل ضخمة دخل باقي سو جاري ما كان ماشى أورينتيشن كحلا كراس إحنا ننت ماشى ليلة كراس ولا هبين كحليمان شري شمعاضة يهبين كيسنين تا بعدت كالو خد بين شري ومارس نظام كالو خد بين شري شوعية مركا أيام تدم با وح هبين كده ما وح سو جاري هبين ما دخل سو جاري أورطوا لي ولا شيء عنقاي واضح خيالي إسبتال خليجي دخل شوالي صوت طري هو وأيتي من حافظ يعني ده هو الإسلام يحكي ولا الكراس يا ماشى لكتي والكراس ثاني كراس شيء له ماشى قصة ما يسوي إيه وما نوري حنين تيجي ولا حنين تقولي متي وري حنين متي هذا القصة ولا دعوة هو وحلو دعوين إنسان حنين تيمان إنك عادي تهاي إن ما أرتين وهي أساس له دعوي وحلو دعويين كعندي تهاي وحلو دي كارك إنشي وحلاقي يبسني ما بس كو إنشي وحكي يبسن شيلين وعمرك غيرها كعندي ويو كارك يمكن جدا الدنيا دي سيا كعب الدنيا وقتها وحتعرفوا يا ريلاني قد قد عيسى ما أرتي وريك مصبيح كرو مركا أساسا هم توي ما كريم مركا وحي يري لكي واحد دمر هيقوم غشيم بي كارك ينواسي marka tacadiyaas badan markii la arkay oo dadkii soo qalan jiriyay oo maartay taariikh ku soo barto Sembir u badnaa gobolada maartay hadda Puntland yiraahdo iyo dad kale oo ku jireen ay iska jahwareereen dadkii ganacsatada way iska guureen magaalooyinka waaweyn East Africa ay galeen dadkii maartay gobolada ka soo jeeday ganacsigooda East Africa wala wareegeen ganacsatada waaweyn hantidooda halkaas oo carareen dadkii ganacsatada inay waxa laga qaatay miisaaniyad wala qaatay waxa loo diiday raashin gadaan waxa loo diiday inay shidaal gadaan waxa una qawatayn dadku waxa rabay kacaan gacantiisa inuu ku jiro nidaamka shuuciga ay dadka cararayeen
بس dad oo wax garad ah oo darayd ah wuxuu tagan nimankii markaasi golaha sare ilaa waxa laga bedelo qaarkood waa la xirxiray oo xabsiga loo taxaaway marka dadku iska higa kaceen niman dhalinyaro ah oo military ah oo wax isku dayeen inay inqilaabaan kacaankii meesha ka jiray oo tacadiga badnaa inay inqilaabaan bay damceen nimankaas marka inqilaabkii uu ala kulli xaal way isku dayeen way ka fashilmeen dabadeedna waxay qaybtoodna ay saraakiishi qaar waafi ka tahay waxay galeen Kenya qaarna waa la qabtay waa la toogtay waa dambe qaar waa la xiray xabsi dheer baa lagu xukumay markaas kuwii joogay garabkii ahaa soodaf oo xisbiga ahaa Roma ka dhisnaa garab hoysan ma ahayn laakiin iyagii waa isku tagay Nairobi baa isku tagay waxa la asaasay jimhad Ethiopia loo tagay waxa la asaasay garab hubaysan oo nimankan iska difaaci kara waa la asaasay garabkaas waxa loo oran jiray SSDF Somali Salvation Democratic Front jimhadda badbaadada Soomaaliyeed baa loo oran jiray saldhig waxa laga siiyay meesha la yiraahdo Ethiopia ergot melia saldhig laga siiyay dadkoodii mutacalimiintooda waa soo urursadeen waxay yimaadeen meesha la yiraahdo ergot Nairobi way ka tageen dhalinyaro badan waa dhulkaani ka baxeen saraakiil military iyo police leh oo awalba iska waxa ahaayeen dad midda cadaadis lagu hayo waa fikadeen oo shaqooyinkooda waa ka tageen shaqaalidoodu waa yaaceen kulli waxa isugu tagay ergot iyo dadna waxay saldhig labaad ka sameysteen magaalada yiraahdo Wardheer waxay ka sameysteen saldhig labaad saldhigaas labaad baa ciidamadii dawladda Shaad Barre ku weeraray oo way soo jabiyeen ciidamada Soomaaliya markaas waxay sameysteen xiriir badan adduunka la xiriireen waxay xireen waxay tageen madaxweynihii Muammar Qadaadi oo aan naxariistay halis janaada ka waraabiyay ninkaas wuxuu soo siiyay hub fiican oo siiyay dhaqaale fiican oo siiyay wali hubka oo siiyay jabhadda oo siiyay hub aan dawladda Shaad Barre iyo dawladda Ethiopia aan haysan waxa oo hub culus oo ka tayab badan hubka maartay labada dawladoodba Ethiopia waxay waa in taageerina hadda la diriiraysan Shaad Barre hadda la diriiraysan waa in taageerina sidaas ay jimhaddu ku asaasantay oo ku timid dagaalo culus bay isla galeen wala kulli xaal waagi dambe way ka gacan sareeyeen ciidamadii nidaamka Shaad Barre waa ka gacan sareeyeen waxay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo Galdogob iyo Balanbale iyo Dogob waxa soo dhan yaa soo qabsaday ilaa ay yimaadeen ilaa xarfa ay yimaadeen ilaa xarfa way soo gaareen nimankaas ciidamadii Shaad Barre way jajab iyo burbur baa ku dhacay kuwa laga soo qaaday waqooyi waa iyagoo khasaaro waa ka soo gaaray ciidamadooda khasaaro badan waa soo gaaray halgankii ilaahay kariyamaan waxay kale oo sameeyeen nimankaasi markay arkeen nidaamka dawladda Ethiopia waxay ka hortimid nidaamkii nimankan ku socdeen iyo xiriirkii ka dhaxeeyay Liibiya bay ka hor yimaadeen markii dambe jabhaddii waxay bilowday in si tartiib weeraradii cuslaa ku haysay dawladda Shaad Barre way yaraysay sababtoo ah Mingiste iyo dawladda Djibouti ka shaqeysay in la dhexdhexaadiyo Mingiste iyo Shaad Barre waxay kaloo ka shaqeeyeen in macnaha niman madaxa oo wasiir ah oo ah Ethiopian ah waxay Mingiste ka dhacsiiyeen haddii aad nimankan maanta ay guuleystaan oo ay Soomaaliya qabsadaan بهلوك سومالي بينكو سو ويراديان نما لا عينين كرا maahan nimankan bixi inaga ay soo weerarayaan oo inuu ku qabsanayaan dhulkan Ethiopia ku qabsanayaan marka maanta inuu ka hortago bas magaalooyinkii ay qabsadeen baa waxa la saaray calanka Ethiopia oo maar sidaas hadii waa ninkii madaxda ka ahaa SDF Allahna Xadiis Cabdullaahi Yuusuf uu ka horiyay Ethiopiankii dadna waa loo xoog sheegtay waa la qabtay waa la xiray jabhaddii waa iska gaabisay halgankii wuu yaraaday waxa soo baxay marka nidaamkii jabhado kale oo waqooyiga ka asaasmay oo 4 sano ka bacdi adigu SSDF 4 sano ka bacdi
SNM baa bilaabatay UNC baa bilaabatay nimankii haray oo SSDF ta ahaayo Nairobi iska tagay way tashadeen waxa la yiri aynu wadankii qayb ka qabsano hataa aylkan way yimaadeen way qabsadeen dabadeedna jamhadihii kale waxaa ku dhashay war ma jirteen dhulkiisa qabsay baa la yiri inaguna aynu maartay hadii ay qabsadeen intaan dhulkiisa qabsay waa carradii madhay dabadeedna SNM weerar buu ku soo qaadayo waxay qabsatay saldhiggii weynaayo magaalada Hargeysa qabsatay Burco qabsatay waqooyigaas way qabsatay dabadeedna ciidamadii waxa la isugu wareejiyay in waqooyi dagaal cusub waxay la gashay SNMT dagaalkaas dowladdu waa ku baabaaday dhaqaalaheedu hoos buu aaday nidaamkii waa xumaaday nimanka gudoomiyaasha ama barasaabada gobolada loo soo magacaabo way baqi jireen oo macnaha in xabad lagu dhuftay ka baqi jireen ninka xabad ku dhuftay ku misaada ama SNM uu galo cid soo qabanaysa ma jiro shiftiisu u baxay ninna kama hor imaan jirin marka nidaamku iska xumaaday dowladii xataa waagi dambe waxay weeday mushaar ay bixiso ilaa UNC ay xamar iyadoo weynaysa gasho hubkii xataa xiriyaha dowladda oo la UNC baa loo wareegtay qaadatay nimanka saraakiisha kulli UNC ahay xataa waxaa kaloo jiray shanta golaha sare nimanka heerkooda la shaqeynay hadda waxa ka soo qaadaa ninka la yiraahdo Ismaaciil Cali Bukhari oo kale SNM tuu la shaqeynay xuseen kun miyaa afrax UNC waa la shaqeynay ninkiisu la shaqeynay marka odaygu faraha wuxuu ma jirin waagi dambe oo iska baabaayo saasay jamhaduhu ku asaasmeen markii dambana dib burburkanay marka SSDF intay jidhay shirarbe waxay ku qabsatay meesha la yiraahdo Addis Ababa waxa la isweydiiyay haddii aynu guuleysano ka warrama دين قلنا سنة وحيسوي تيجي خبراء وحيسوي تيجي نظام فدرال كليلا مقاضنين نظام كان فدرال كليلا بين مقاضنين شيء سومالي ونا وقشوا يبدأ أدونك أول بحثان سيد إنجليز كيو فدرال كاس كل رغمان وفدرال كاس مقاضنين نظام كان فدرال كان كلنا نبتجرين بين مقاضنين مركا سياسة واجد ذنبي markii buudan la asaasay oo Cabdullaahi madaxweyne xamar ka noqday waa tii nidaamka federaalka la ilaa yoomiya hada ilaa maanta in joogno waxa uu ka joogaa nidaamka federaalka oo SSDF ay keentay guuriga SSDF maartay gaadhi kamid ahaa maanta miraheena aan guranayno waxa kamid ah in federaal qaadano Soomaaliya federaal noqdo oo nidaamka dictatoriga ah iska baabo tacdiyada ugu daran waxa kamid ahaa waxyaalaha burburiyay dowladii dhexe waxa kamid ahaa hal magaalo wax ka sar ay u qabanaysi oo ka dhisaysi oo nidada jaamacad ha noqoto isbitaal ha noqoto waxbarasho kale ha noqoto jidad ha noqoto wadooyin waaweyn ha noqoto laamiyo ha noqoto hal magaalo kaliya laga dhis haweeneyda maartay fooranaysa ama qof yar oo qalin yar u baahan in xamar aad u noqon jiray ama cawlo ka soo tago ama loo yacad ka soo tago isbitaal xamar baa lagu qalaya haweenta ku fooranaysa loo yacad ku fooranaysa xamar baa loo soo qaaday isbitaal banaadir baa loo soo qaaday ay markaan oo ku keenaysa isnaan maartay fooranayso afar habeen saddex habeen ku soo jiday baabaaday waa la keenay jiray markaas ama iyadii isku dhiman jiray ku soo dhiman jiray marka waxyaabaha nidaamka burburiyay waxa kamid ah cunuga yar markuu gaaro sanadii ka baxo xamar baa loo aadi jiray oo jaamacad malaha wadan ma jira maanta waa arkaan gobolada qaybtooda aad buu u koreen oo waa artay wax kasta iyo maanta samaystay oo nidaam koodi iyo dowladnimadoodii hoose iyo xukunkoodii hoose iyo waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii waxna ayaa ka adkaaday sida Puntland oo kale waxay noqotay dowlad yar oo isku filan bay noqotay oo waxyaada iyadoo isku filan bay noqotay sidaas ay ku timid marka SSDF tacdiyada maartay gacan ku geystay gobolada waqooyi bari